السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ونكسن لما نصحبتنا وحيران قد أهن مقال كان وحنكو فلنقين دونا بروجرام كاللو يغان دي في لوتريجا iyo guud ahaan talooyinka muhiimka ah ee ku aadan barnaamijkan wasaacid xaaji aadan soo dhawaada mar kale barnaamijka DV Lottery-ga waa mid kamid ah fursadaha ugu weyn ee ay dadka ka soo jeeda Soomaaliya iyo dalalka kale ee dunida saddexaad ay ku heli karaan deganaanshaha rasmiga ah ee Mareykanka si kastaba ha ahaatee siyaasadda socdaalka Mareykanka ayaa si weyn ugu xiran hadba cidda madaxda ka ah aqalka cad warbixintan waxaan ku eegaynaa sida uu madaxweyne Donald Trump u arko barnaamijkan iyo tallaabooyinkii uu qaaday intii uu xilka hayay iyo waxa laga filan karo sanadaha soo socda barnaamijkan waxa sanad walba ka faa'iideysta dad gaaraya ilaa 550,000 oo qof si ay ugu noolaadaan Mareykanka waxaana loogu talagalay dadka ka yimaada dalalka aan fursadaha u helin fiisooyinka kale ee Mareykanka muddo xileedkii hore 2017 ilaa 2021 madaxweyne Trump wuxuu si adag u dhaliilay barnaamijka DV Lottery-ga wuxuuna ku tilmaamay mid aan xirfad lagu salayn isla markaana khatar ku ah amniga qaranka Mareykanka isagoo tusaale u soo qaatay weerarkii New York ee 2017 weerarkaas oo uu geystay qof ku yimid programka DV Lottery-ga madaxweyne Trump wuxuu sheegay in uu doonayo in barnaamijkan la tirtiro loona bedelo nidaam ku salaysan kartida qofka taasoo diiradda saaraysa waxbarashada xirfadaha iyo luqadda haddii aan dib u milicsano muddo xileedkiisii hore iyo go'aamadiisii dhanka socdaalka waxa uu gebi ahaanba joojiyay in qofku DV Lottery-ga xareysto ama codsado baasaboor la'aan inkasta oo maxkamaddu markii dambe sharcigaas laashay wuxuuna arrinkaasi saameeyay kumanaan codsade qodobka labaad waxa uu ahaa horgeynta Congress-ka si ugu yaraan loo bedelo nidaamka uu markii hore ku socday looguna bedelo nidaam dhibco ku salaysan xirfad iyo waxbarasho inkasta oo uusan ansixin Congress-ka ka helin wargelin muhiim ah xarunta Saacid Agency waxay ka caawinaysaa guud ahaan adeegyada kala ah diyaarinta kaysaska sixidda kaysaska khaldamay turjumidda kaysaska qabashada ballanta faraha ka jawaabidda interview-ga iyo talo bixinta dhammaan wixii interview-ga la xiriira xaruntu waxay ku taalaa Kisenyi gaar ahaan agagaarka Masjidu Dacwa suuqa dhanka midig ka xiga ee Jubilee Complex wixii faahfaahin ah fadlan kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda waxa kale oo kamid ahaa xayiraadihii dhanka socdaalka taasoo saameysay dalal badan oo muslimiin ah Soomaaliyana ku jirto kuwaas oo gabi ahaanba laga mamnuucay inay fiisaha Mareykanka helaan sidoo kale waxaa jirtay hakadkii fiisayaashii 2020 kaasoo loo hakiyay cudurka COVID-19 dartiis wuxuuna Mareykanku xilligaas joojiyay fiisaha dalku galka taasoo saameysay guuleystayaashii sanadkaas haddaba maxaa laga filayaa dawladda madaxweyne Trump sanadaha nagu soo aadan qodobada la filayo ama saansaantooda haddaba soo ifbaxayso ayaa waxa kamid ah dib u bilaabidda dadaalkii lagu joojinayay nidaamka DV Lottery-ga xoojinta nidaamka ku salaysan kartida iyo yaraynta nidaamka ku salaysan xiriirka qoyska iyo bakhtiyaa nasiibka inkastoo madaxweynuhu dadaal badan muujinayo haddana arrimahan ayaa waxay u baahan doonaan ogolaanshaha aqalka Congress-ka taasoo go'aamin doonta suurtagalnimada arrimahan iyo in kale Soomaalida ayaa weli si aad ah uga faa'iideysta barnaamijka Lottery-ga qaybo badan oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku sugan ayaa soo galay wadankan iyagoo adeegsanaya barnaamijkan haddii barnaamijkan la xiro ama si weyn loo adkeeyo fursadda ay Soomaalidu ku heli karaan green card-ka waxay noqon doontaa mid aad u kooban waxayna tani xadidi doontaa fursadaha dad badan oo Soomaali ah iyo dib u mideynta qoysaskooda barnaamijka DV Lottery-ga wuxuu weli yahay fursad muhiim ah oo ay dadka Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee ka soo jeeda dalalka dhaqaale ahaan liita ay ku heli karaan nolol cusub iyo fursado la isku halayn karo si kastaba ha ahaatee siyaasadda Mareykanka gaar ahaan marka madaxweyne cusub yimaado waxa dhacda in isbedel ku yimaado jihadii uu barnaamijkani horay ugu socday sidaas darteed waxa muhiim ah in dadka Soomaaliyeed ay la socdaan isbedelada siyaasadeed ee barnaamijkan saameynta togan ku yeelan kara ugu dambeyn haddii aad kamid tahay dadka sanadkan ku guuleystay waxa muhiim ah in aad la tashi la samayso ama qareen dhanka socdaalka ah u bandhigto arrimahaaga si aadan u lumin fursadan muhiimka ah fadlan haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan waxa naga xasuusin ah inaad muuqaalka like garayso saaxiibadaada la wadaagto si uu meelo fog u gaaro dadkuna uga faa'iideystaan wixii talo ama tusaale ah waxaad noogu reebi kartaa qaybta comments-ka hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xogaha aan channelkan ku soo gudbino aysan marna ku dhaafin intaan warbixintan mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo